السلام عليكم صاحب يال وأنا عبد الجليل عثمان عبد الجليل برو ayaa digala socotaan kanaalkii dhalinyarada halkan waxaan ku hayaa warbixin ka kooban 296 bog oo ah warbixin saadaalinaysa mustaqbalka shaqooyinka iyo xirfadaha muhiimka ah laga soo bilaabo 2023 ilaa 2027 waxaana warbixintan soo saartay hay'adda The World Economic Forum waxaanu saadaalin doonaa shaqooyinka waxtarka leh laga soo bilaabo 2023 ilaa 2027 inagoon eegi doona sidoo kale xirfadaha ugu muhiimsan ee waxtarka leh ee ay lagama maarmaan ka tahay in aad maanta barata si aad ugu guuleysata suuqa shaqooyinka 5 sane ee soo socota shantan sano laga soo bilaabo 2023 ilaa 2027 waxaa la saadaalinayaa in suuqa ay ka baxaan oo gebi ahaanba la waaya 83 milyan oo shaqooyin ah waxaa sidoo kale la saadaalinayaa in ay abuurmaan oo ay suuqa soo galaan 69 milyan oo shaqooyin ah ayaa sidoo kale la rajaynayaa in ay abuurmaan oo ay suuqan soo galaan waxay tani ka dhigan tahay in celcelis ahaan shantan sano suuqa uu isbedel xoog leh sameyn doono iyadoona shaqooyin badan ay suuqa ka bixi doonaan kuwa kalena ay suuqa soo gali doonaan xirfadaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah iyo shaqooyinkan iyo saameynta ay nagu yeelan doonaan ayaan warbixintan ku eegi doonaa aniga oona si toosa u dul istaagi doona dokumentigan ay soo saartay hay'adda amaba the World Economic Forum ayaana dul istoogi doona haddii aad nagu cusub tahay fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran cabdijaliil baro waxaanu soo gudbin doonaa warbixino waxtar u leh dhalinyarada soomaaliyeed xogo rasmi ah oo dunida laga soo saaray mustaqbalka iyo tiknolojiyadda iyo halka suuqa uu socdo ayaanu saadaalin doonaa sanooyinka iyo binooyinka soo aadan fadlan haddii aad nagu cusub tahay si aanu muuqaalo badan u sameyno oo waxtar u leh dhalinyarada soomaaliyeed nagu soo beer oo maanta subscribe dheh haddii aan ku bilowna documentiga warbixinta waxaanu ku bilaabi doonaa shaqooyinka cusub ayaanu eegi doonaa ee suuqa sida aanu sheegnay inagoona sidoo kale u tagi doona qeybaha dambe xirfadaha lagama maarmaanka ah iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin shaqooyinkan iyo xirfadaha ayaanu eegi doonaa shaqooyinka ugu muhiimsan iyo xirfadaha ugu muhiimsan ayaanu isbarbardhig ku sameyn doonaa shaqooyinka suuqa ka bixi doona ee gebigoodba baabi'i doona ayaa sidoo kale aanu warbixintan ku eegi doonaa kuwaasi oo haddii aad tahay dadka ku shaqeysta amaba hadda nolol maalmeedkooda ka soo saarta lagama maarmaan ay tahay in hadda aad bedel kala raadisay islamarkaana xirfado cusub aad samaysata amaba shaqooyin cusub oo hor leh amaba aad dib wax u barata amaba aad samaysa waxa loo yaqaana re-skilling amaba up skilling aad samaysay in dib aad wax isu barta amaba sidoo kale skills cusub aad barata haddii aanu egno job outlookiska shaqooyinka ugu muhiimsan graafkan saaxiib yaal sida aad ka aragtaanba calaamada bubbleka waxay idiin muujinaysaa shaqooyinka suuqa gebi ahaanba ka bixi doona halka calaamooyinka stableka aad arki kartaan iyo sidoo kale kuwa cusub ee suuqa iyagu kusoo beeri doona haddii dhinaca tiknolojiyadda iyo shaqooyinka aan dul istaagna amaba aan ku horumarna waxa ugu horeeya ee sida weyn u kordhi doona waxaa ka mid ah digital platforms and apps-ka oo iyagu kordhi doona 86.4 ayay kordhi doona waxay ka dhigan tahay in haddii aad tahay dadka applicationada sameeya amaba digitalka wax kusoo gudbiya amaba digital platform adeegsada in suuqan uu mustaqbal wanaagsan leeyahay waxaa sidoo kale kaalinta labaad oo ku jira oo sidoo kale 80.9 kordhi doona education and workforce development technology oo ah in platformyada online-ka wax lagu barta iyo wax kasta oo dhinaca tiknolojiyadda ee waxbarashada la xiriira ayaa sidoo kale waxa ay kordhi doonaan 80.9 kaalinta saddexaad waxaa ku jira saaxiibyaal oo iyaduna sidoo kale si weyn u kordhi doona oo shaqooyinka la doondooni doona ka mid ah kaalinta saddexaad ku jira oo 80% koror sameyn doona shantan sano big data sidoo kale waxa loo yaqaana big data analytics ayaa sidoo kale 80% kordhi doona kaalinta afraad shaqooyinka ku jira waxaa ka mid ah oo sida weyn loo gogoobi doono oo haddii aad barato amaba aad leedahay xirfadaasi aad suuqa shantan sano mustaqbal ku yeelan doonto waxaa loo yaqaana internet of things and connected device ama waxaa loo yaqaana IoT ayaa sidoo kale kaalinta afraad ku jira iyaduna waxa ay kordhi doonaan shaqooyinkan 76.8 ayaa la saadaalinaya 2023 ilaa 2027 in suuqoodu uu buumi noqdo oo cirka gala
waxaa sidoo kale ka mid ah shaqooyinka kordhi doona ee sida weyn loo raadinayo waxaa loo yaqaana cloud computing, iyagoona sidoo kale kordhi doona boqolkiiba 76.6 ayay kordhi doonaan. 76.6 waxaa kordhi doona cloud computing waxaa loo yaqaana, amaba in daatada laga maarma, in physical loo keediya, isla markaana saafrada laga maarma, iyadoona xogaha hay-adaha iyo dowladaha caalamiga ah iyo hay-adaha caalamiga ah xogahooda hadda ay ku kaydin doonaan dhinaca cloudka, isla markaana loo baahan yahay dad xogta qaada, isla markaana cloudka ku keediya, isla markaana infrastructure-kooda si wanaagsan u ilaaliya. Haddii aad cloud computer barata, boqolkiiba 76.6 ayuu suuqan kordhi doonaa, oo laga yaaba sida la saadaalinaya amaba World Economic Forum ay saadaalinayso. waxaa sidoo kale ku xiga saaxiibayaal oo ka mid ah shaqooyinka sida weyn loo raadin doona 5 sano, encryption and cyber security, waxayna kordhi doonaan boqolkiiba 76.6 ayay sidoo kale kordhi doonaan. waa encryption and cyber security, xogta la encrypt gareeya si loo ilaaliyo amnigooda, iyo sidoo kale waxa loo yaqaano cyber security oo ah amniga internetka. iyaguna saaxiibayaal waxay kordhi doonaan boqolkiiba 70.6 sida ay shaacisay amaba ay saadaalisay the World Economic Forum warbixintii ay soo saartay 2023. cyber security saaxiibayaal iyo encryptionka waxaa ku xiga sidoo kale oo si weyn u kordhi doona amaba la saadaalinaya inay kobcaan e-commerce and digital trading waxa loo yaqaana. ganacsiyada dunida ayaa waxa la saadaalinaya in ay iska xiraan istoorada ay ku leeyihiin magaalooyinka idaafaha caalamka, iyagoona u guuraya waxa loo yaqaana e-commerce ama waxa loo yaqaana digital trading. ganacsiyo badan ayaana suuqa digitalka soo gali doona, iyagoona raba in ay dhimaan agabka physicalka u yaala, isla markaana istooradooda lasoo yareey. sidoo kalena waxa ay doorbidi doonaan in dhinaca e-commerce-ka amaba waxa la saadaalinaya in dhinaca e-commerce-ka ama digital trade-ka wax loo yaqaana, oo ah in online-ka lagu ganacsada uu koror weyn sameeyo. waxa uu kordhi doonaa boqolkiiba 75.3 ayuu suuqan kordhi doonaa 2023 ilaa 2027. waxaa sidoo kale ku xiga saaxiibayaal oo boqolkiiba 74.9 kordhi doona sida la saadaaliyey artificial intelligence amaba caqliga macmalka ah. si weyn ayay u kordhi doonaan 5 sane ee soo aadan. iyaguna haddii aan sidoo kale artificial intelligence-ga waad wada taqaanaan AI, wax kasta oo dunidan yaalla maanta amaba shirkad kasta oo dunidan taalla maanta waxay jeceshahay in go-aanadeeda ay gaaraan artificial intelligence, isla markaana shaqooyinkeeda AI ay fududeeyaan. shaqooyin ugu badan ayaa sidoo kale artificial intelligence ay qaban doonaan, haddii ay noqon lahaayeen in xogo lasoo koobo, haddii ay noqon lahaayeen in analytic la sameeya. artificial intelligence-ga ayaa si weyn sidoo kale 74.9 suuqan kordhi doona sanadahan aanu joogna. waxaa sidoo kale saaxiibayaal ku xiga oo iyaguna sidoo kale si weyn u kordhi doona environmental management technologiyada ayaa kordhi doonta. waxaa sidoo kale kordhi doona haddii aan dulmar ku sameeyo climate change mitigation technology ayaa kordhi doonta. waxaa sidoo kale kordhi doonta saaxiibayaal boqolkiiba 60 wax ka badan text image and voice processing, oo ah applicationada in text la geliyo sawir u bedeli doona amaba in sawir la geliyo cod la dul saari doona ayaa sidoo kale si weyn u kordhi doonta. waxaa sidoo kale kordhi doona saaxiibayaal waxa loo yaqaan augmented and viral reality ayaa sidoo kale kordhi doonta. power storage and generation ayaa sidoo kale kordhi doonta. electric automation and vehicles ayaa sidoo kale kordhi doonta. iyadoona sidoo kale saaxiibayaal shaqooyinka loo yaqaana robot and non humanoid loo yaqaana ay kordhi doonaan, ama shaqooyinka gebi ahaanba robotka ay kordhi doonaan boqolkiiba 51.3 ay kordhi doonaan. graafkan saaxiibayaal aad aragtaan waxa uu idiin muujinayaa isbedelka xawliga ah ee uu suuqan ku socda laga soo bilaabo 2023 ilaa 2027. dhammaan shaqooyinkan aan soo sheegay amaba xirfadahan aan soo sheegay ayaana high in demand amaba demandkooda uu aad u sareeya marka loo eega sanadihii lasoo dhaafay. haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo mustaqbalka leh, haddii aad joogto Africa, haddii aad joogto bariga dhexe, haddii
haddii aad joogto Yurub, shaqooyinkan aan idin sheegay waxay yihiin kuwa ugu mustaqbalka badan ee aad maanta baran karta amaba xirfadaha waan u tagi doonaa laakiin shaqooyinka ugu badan ee suuqan wax ka goyn doona haddii aad dhalinyaro tahay ee aad jaamacad dhiganaysa fadlan isku day in aad tixgelisa arrimahan waxaa kale oo xiisleh saaxiibayaal dhammaan shaqooyinkan aan idin sheegay in dhinaca tiknolojiyadda ay saameyn ku leeyihiin amaba dhinaca tiknolojiyadda ay la xiriiraan taasi oo ku tusinaysa saaxiibayaal in tiknolojiyadda ay tahay halka dunida u socota isla markaana 10 sano ilaa iyo 5 sano amaba 15 sano ee soo aadan wax kasta lagama maarmaan ay tahay in teknolojiya loo adeegsado shaqooyinka ay meesha ka baxaan robot u adeega amniga internetka ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashada dhammaan ay noqoto dhinaca tiknolojiyadda in loo guura waxayna ku tusinaysaa saaxiibayaal graafkan sida loo kala sareeyo percentage-ka loo kala sareeyo iyo saadaalinta suuqa tiknolojiyadda iyo sidoo kale korarka suuqa haddii aan saasi uu suuqan sidaan u kordhaya sidoo kale waxaa jira qaar si weyn noo saameyn doona iyo qaar 5 sano ilaa iyo 10 sano ee soo aadan aan na saameyn doonin oo shaqooyinkeena aan qaadan doonin iyaduna graafkeeda ayaan idinla wadaagi doonaa graafkan saaxiibayaal sidoo kale waxaanu ku eegi doonaa graafkan ama figurkan 2.5 sidoo kale waxaanu ku eegi doonaa sida teknolojiyadan ay shaqooyinkeena u qaadan doonta ee ay noo saameyn doonta iyo sida bani aadan ahaan haddii aanu nahay ay u baahan tahay inaanu ka digtoonaad waxyaabaha ugu badan ee shaqooyinkeena qaadan doona amaba graafkan haddii aad eegta waxyaabaha ugu badan ee shaqooyinkeena la tagi doona ee challenge-ga nagula jira waxaa ka mid noqon doona oo negative 8.8% kordhi doona robotka waxaa loo yaqaana saaxiibayaal amaba automationka waxaa loo yaqaana amaba non humanoid waxaa loo yaqaana sida aad halkan ka aragta ama saaxiibayaal si weyn ayay noo saameyn doonaan robotyada shaqooyinka ugu badan ee dunida haddii ay ahaan lahayn white house haddii ay lahayn ganacsi haddii ay ahaan lahayd dhinaca amniga haddii ay noqon lahayd dhinaca militariga si weyn ayay shaqooyin badan ula tagi doonaan sanadaha soo aadan 5 sano ee soo aadan ilaa iyo 10 sano ee soo aadan waxaa sidoo kale saaxiibayaal automationka iyo robotka marka laga soo tagay si weyn noo saameyn doono oo shaqooyinka ugu badan 25.6% shaqooyinkeena la tagi doona saaxiibayaal waxaa loo yaqaana artificial intelligence oo aan u baahannahay inaan ka digtoonaana oo aan barana sida loola xifaaltama isla markaana loola falgala artificial intelligence-ga graafkan sida aad ka aragtaan saaxiibayaal 25.6 aan idhaahdee ayay la tagi doontaa shaqooyinka suuqan yaala sidoo kale saaxiibayaal artificial intelligence-ga waxa marka laga soo taga shaqooyinka kale ee dhinaca tiknolojiyadda ee saameynta nagu yeelan doona waxaa ka mid ah oo welwelka abuuri doona image text and voice processing waxa loo yaqaana kambaniyada ugu badan waxay sameyn doonaan in shaqaalahooda ay ku tababaraan text based iyagoona text u qoraya isla markaana image u generate gareyn doona isla markaana xogta sidaasi loo process gareyn doona shaqooyin ugu badan ayaa la tagi doona oo ah 17.6 ayay la tagi doonaan suuqan iyadoona sidoo kale tiknolojiyada impactiga ay nagu yeelan doonta ka mid ah for example dadka wax tababara amaba tutorialka dadka bara ayaa laga maarmi doona iyadoona kambaniyada ugu badan ay adeegsan doonaan in AI ay u generate gareeyaan ama waxa loo yaqaana text image and voice processing 17.6 ayay suuqan la tagi doontaa haddii uu barhali ka noqdo si laga cabsi qaba waxyaabaha kale ee cabsida xoogan leh ee suuqan la tagi doono waxaa ka mid ah oo ay tahay haddii aanu bini aadan nahay inaanu ka walwalna waxa loo yaqaana electric and automation vehicles 16.5 ayayna la tagi doonaan shaqooyinka 2023 ilaa 2027 iyo 10 sano ee soo aadan waxa ugu badan ee sidoo kale aanu ka cabsan doono waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana electric and automatic vehicles oo gawaarida in si automatic ay isu wadaan isla markaana electric ay wata haddii gawaarida electric ay noqdaan halkaasi waxaa ka bixi doona shidaalkii iyo sidoo kale haddii automation ay noqoto halkaasi waxaa ka bixi doona darawalkii gawaari badan oo hay-adaha caalamiga ay leeyihiin oo shirkadaha caalamiga ay leeyihiin oo dunida horumartay ayaan sidoo kale iyagu iskooda isu wadi doona iyadoona dadka tagsiyada ku xamaasha sidoo kalena ay halkaasi ka bixi doonaan oo shaqooyinkooda gawaari iswada ay qaadan doonta sida ay sheegtay hay-adda World Economic Forum
sidoo kale waxaa saameyn nagu yeelan kara oo ay tahay inaanu ka cabsano oo si weyn noo saameyn doona saaxiibyaal waxaa loo yaqaana internet of things amaba IoT waxaa loo yaqaana si weyn ayay noo saameyn doonaan amaba connected device IoT waanu wada naqaanaa iyo sidoo kale internet of things waxaa loo yaqaana mashiinadan automatiga ah oo haddii ay noqon lahayd kuwa traafikada haddii ay noqon lahayd dukaamada sida iskaaga aad intaa u gasha alaabta usoo qaata isla markaana aan loo baahan doonin kaashiyeera dadka wax ka iibiyey dukaankii laga yaabi lahaa in 100 qof oo kaashiyeer ay ka shaqeeyaan amaba warehouse-kii laga yaabi lahaa amaba supermarket-kii laga yaabi lahaa in 100 qof ay ka shaqeeyaan ayaa laga yaabaa in halkaas la dhiga 20 mashiin halkaasi 100 qof shaqo la-aan ay ku noqoto marka internet of things ama connected device waxa loo yaqaan saameyn xoogan ayay suuqan ku yeelan doonaan waana in si weyn aan ugu walwalnaa sidoo kale waxyaabaha kale ee laga yaaba in shaqooyinkeena ay qaataan waxaa kamid ah cloud computing waxaa sidoo kale laga yaabaa cryptocurrency ayaa suuqan saameyn doona waxaa sidoo kale aad noo saameyn doona saaxiibyaal oo ay tahay inaanu ka feejignaana garaafka marka la eega e-commerce and digital trends ganacsiyada dukaamada halkii bakhaaro la buuxin jiray waxaa laga yaabaa magaaladan halkii ay ahaan lahayd inaad ka furto 100 bakhaar aad ka furto waxaa laga yaabaa inaad ka furto 5 bakhaar isla markaana alaabta halkaasi aad dhigatay inta kalena aad digital ku iibisa alaabta amaba digital aad ku biicgeysa isla markaana istoorada halkaasi ay aad u yaraadaan soo sidoo kale suuqa cabsida u muuqda waxaa kamid ah e-commerce and digital trending sidoo kale saameyn ayay nagu yeelan doontaa digital platform and apps ayaa sidoo kale kamid ah halkaasi saaxiibyaal haddii aanu kaga soo baxna shaqooyinkan iyo sida ay noo saameyn doonaan iyo shaqooyinka waxtar kale waxaa sidoo kale aanu eegi doonaa shaqooyinka gebi ahaanba suuqa ka bixi doona oo sida weyn looga cabsi qaba 5 sano 10 sano ee soo aadan in gebi ahaanba suuqa ay ka baxaan oo haddii aad tahay dadka shaqooyinkan ka shaqeysta ama shaqooyinkan nolol maalmeedkooda ka soo saarta in hadda aad bilowda in aad barata xirfado kale ama shaqooyin kale ama aad sameyso waxa loo yaqaan up skills waxa loo yaqaan oo ay tahay in aad adigu xirfado isbarta shaqooyinkan dad badan ayaan garanaya oo ka shaqeysta balse lambara cabsi leh ayaan idinla wadaagi doonaa ama xooga cabsi leh ayaan idinla wadaagi doona oo ah in shaqooyinkan si weyn ay suuqa ugu bixi doonaan isla markaana ay tahay haddii aad adigu shaqooyinkan ka shaqaysata in aad go-aan ka gaarta noloshaada wata xaadirka waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana data entry clerk oo ah in xogaha dadka keydiya oo si manually ay kombiyuutarada u geliyay waxaa laga yaabaa in shaqooyinkaasi ay suuqa ka baxaan bilooyinka ama sanaha soo aadan waxaa sidoo kale ka mid ah waxa loo yaqaana administrative and executive secretary dadka secretariyada ah ama administrative-ka ah ayaa sidoo kale shaqo la-aan adag ay soo wajihi doontaa waxaa ka mid ah sidoo kale oo kaalinta saddexaad ku jira shaqooyinka gebi ahaanba decline-ka uu ka socdo oo millions ka mid ah suuqa uu ka bixi doono waxa loo yaqaan accounting bookkeeping and payroll clerks haddii aad tahay dadka ku shaqeysta accounting dadka ku shaqeysta bookkeeping ama dadka ka shaqeeya payrollska because kambaniyo badan CRM ayay adeegsadaan ama platformyo CRM ayay adeegsadaan kuwaasi oo u suurta gelinaya in si digital ah ama automatic ah si bila ah xogta loo keediyo shaqaalaha isla markaana payrollyada ay u sameeyaan accountingda ay u sameeyaan waxaa laga yaabaa marka shaqooyinkan 5 sano ee soo aadan in gebi ahaanba ay cirib tirmaan ama ay baaba'aan oo ay suuqa ka baxaan marka haddii aad tahay dadka ku shaqeysa accounting haddii aad tahay dadka ku shaqeysa bookkeeping haddii aad tahay dadka ku shaqeysa payrollska waa inaad hadda ka digtoonaataa oo aad suuq raadsataa shaqooyinka shanaad ee suuqa ka bixi doona gebi ahaanba sanadaha soo aadan amaba yaraan doona si xawli ah u yaraan doona waxaa ka mid ah waxa loo yaqaana security guard dadka albaabada taagan ee security-ga ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed u badan qurbahan ayaan ku arkay dhalinyaro badan Soomaaliyeed oo u kala cararaya inay noqdaan security-ga gaar ahaan dukaanada hor istaaga waxaa laga yaabaa shaqooyinkaasi in gebi ahaanba suuqa ka baxa wax kasta waxaa loo bedeli doonaa teknolojiyada digital ayaana loo bedeli doonaa so graafkan haddii aad eegta 3.5 waxaad arki kartaa in security gaarka shaqooyinkiisa sidoo kale ay meesha ka bixi doonaan oo suuqan gebi ahaanba uu hoos u dhici doona waxaa sidoo kale ka mid ah shaqooyinka meesha ka bixi doona housekeeping kuwa loo yaqaana waxaa ka mid ah kaashiyeerada aan ticket clerks kuwa loo yaqaana ticket clerkska amaba shirkadaha ticketyada laga jarta boqolkiiba intaasi ayaa hadda dadku ticketyada waxa ay ka jaranayaan online-ka marka haddii aad tahay dadka ticketyada dadka u jara amaba dadka sidoo kale kaashiyeerada ah ee maqaaxidaha ka shaqeeya
waxaa kusoo food saari doonta cabsi xoog leh 5 sano ee soo aadan 10 sano ee soo aadan waa inaad raadsataa shaqo aan taasi ahayn ama shaqo aan tani ahayn waxaa sidoo kale kamid ah shaqooyinka suuqa ka bixi doona assembly and factory workerada ayaa kamid dadka waxyaabaha assemble gareeya ama shirkadaha ka shaqeeya ayaa sidoo kale suuq la-aan xoogan ay soo wajihi doontaa 5 sano ee soo aadan ama 10 sano ee soo aadan sida ay shaacisay World Economic Forum ama riboodkii World Economic Forum ay soo saartay 2023 iyo sida halkan kaaga muuqata ama aad graafkan ka arki karta shaqooyinkaasi oo dhan saaxiibayaal sida aad graafkan ka aragtaanba way burburayaan suuqa ayayna ka bixi doonaan iyagoona percentage-kooda iyo sida ay u burburayaan ay kala sareeyaan amaba ay kala hooseeyaan marka haddii aad tahay qof arrimahaasi ku shaqeysa waxaa laga maarmaan ah saaxiibayaal in aad suuq raadsatay isla markaana waqti xaadirkan aad noloshaada dabirta shaqooyinka suuqa ka baxaya iyo shaqooyinka mustaqbalka wanaagsan leh haddii aan intaasi kaga soo baxno mar raba in muuqaalka nala dheeraada waxaan rabnaa inaanu eegno saaxiibayaal sidoo kale xirfadaha waa wax ugu muhiimsan ee shaqooyinka u dhigaya ama lagama maarmaanka ay tahay oo shirkadaha ugu badan dunida ay maanta raadinayaan xirfadaha ayaa la isku dhaafay haddii aad xirfadahan leedahay xirfadahan waxay isugu jiraan saaxiibayaal kuwa physical ah oo lagama maarmaan ah inaad physical u barata kuwa sidoo kale skills ah oo la xiriira hafakar kuwa ethics la xiriira ayaa jira ama anshax la xiriira sidoo kale kuwa wax la xiriira ayaa jira managerial skills ama loo yaqaan dhinaca maamulka ayaa la xiriira qaarkoodna waxay la xiriiraan teknolojiyada xirfadahan qaarkoodna sidoo kale waxay la xiriiraan dad la macaamilka iyo sidoo kale in dadka kale lala shaqeeya waxaan sidoo kale halkan saaxiibayaal kugula wadaagi doonaa qaar ka mid ah skillska ugu muhiimsan ama xirfadaha ugu muhiimsan anaga oona eegi doona maybe 20 xirfadood ee laga maarmaanka ay tahay in aad barato haddii aad shaqooyinka soo aragteen suuqa ka bixi doona iyo shaqooyinka suuqa ka baxaya iyo shaqooyinka lagama maarmaanka ay tahay inaad barata sidoo kale hadda aanu eegna saaxiibayaal waxaa loo yaqaanaa xirfadaha ugu muhiimsan ee waxtarka leh ee maanta suuqa wax ka gooya kaalinta koowaad waxaa ah oo shaqaalaha shirkadaha ugu badan daafaha caalamka hadda la raadinayo waxaa loo yaqaana analytical thinking amaba in qofka habfakar wanaagsan oo analytic ah uu leeyahay ama habfakarkiisa uu wanaagsan yahay shirkadaha ugu badan ayaana raadinaya waxayna tahay habfakarka kaalinta koowaad waxay kaga jirtaa waxaa loo yaqaana core skillska ee la raadinaya 2023 ilaa iyo 2027 waxaa kaalinta labaad ku jira saaxiibayaal waxaa loo yaqaana creative thinking amaba qofka in uu creative thinking la yimaada amaba dhinaca hal abuurka uu la yimaada ayaa sidoo kale laga maarmaan ah kaalinta saddexaad saaxiibayaal waxaa ku jira oo si weyn loo ilaalinaya oo ka mid ah waxa loo yaqaana self efficiency-ga amaba waxa loo yaqaana resiliency flexibility and agility waa in aad adkaysi leedahay oo aad tahay qof adkaysi badan cimilooyinka iyo environmentyada kala duwan oo adkaysan doona in sidoo kale aad tahay qof flexible ah oo la qabsi wanaagsan iyo sidoo kale qof agility waxa loo yaqaana ama waxa loo yaqaana kartida agility waan raali noqdo af Soomaaliga haddii aan ku waayay waxyaabaha qaarkood waxaan agility waa waxa loo yaqaana waan creative thinking waa fakarka ama fakarka hal abuurka leh analytical thinking waa fakarka gorfaynta sidoo kale waxaa ka mid ah saaxiibayaal resilience flexibility oo ah dabacsanaan iyo agility oo ah waxa loo yaqaana firfircooni qofka inuu yahay qof firfircoon agility macnaheedu waxay tahay qofka inuu yahay qof aad u firfircoon waxayna ka mid tahay xirfadaha ugu badan ee shaqaalaha dunida hadda loogu baahan yahay in ay yeeshaan oo shirkadaha caalamka ay raadinayaan waxaa sidoo kale ka mid ah waxa loo yaqaana saaxiibayaal oo kaalinta afraad ku jira motivation and self awareness oo qofka inuu yahay qof isdhiirigelin kara isdhiirigeliya amaba qof dhiirigelinta qaadanaya ama marka la dhiirigeliya aqbalaya iyo sidoo kale waxa loo yaqaan self awareness oo qof self awareness kiisa uu sareeyo waxaa sidoo kale ka mid ah saaxiibayaal oo aad loo raadinaya technology literacy oo ah xirfadaha in teknolojiyada ay aad aqoon u leedahay isla markaana teknolojiyada ay adeegsan kartaa shaqooyinka teknolojiyada haddii aan soo aragnay sidoo kale xirfadaha teknolojiyada ayaa loo baahan yahay waxaa ka mid noqon doona sidee computer loo shidaa sidee computer loo adeegsadaa
sidee Microsoft wax loogu qoraa sidee Word loo adeegsadaa sidee computerka loo shida loo damiyaa sidee computerka printer looga xiraa sidee computer wax loogu printer gareystaa sidee computerka amaba AI-ga prompt loo siiyaa waa wax loo yaqaana AI amaba artificial intelligence prompt loo sameeyaa ama prompt engineering wax loo yaqaano oo ah sidee prompt loogu qoraa AI-ga because AI-ga wuxuu u baahan yahay in la amra oo laga shaqaysiiyo because isaga iskama shaqaysan karo waxaad u baahan tahay inaad barato wax loo yaqaana oo lagama maarmaan ay tahay xirfadda loo yaqaana AI-ga iyo sida loola falgalay ee loola macaamila amaba sida AI prompt engineering AI wax loogu fara for example waxaad ii qortaa warbixin waxaad ii qortaa report waxaad ii sheegtaa bangiyada dunida ugu wanaagsan so waxaas dhan waxa loo yaqaana prompt engineering waana sida loola macaamila loola hadla isla markaana loola falgala artificial intelligence taasi waxay ka dhigan tahay in aad tahay qof yaqaana waxa loo yaqaana technology literacy oo ah aqoon inaad u leedahay teknolojiyada waxaa sidoo kale la mid ah saaxiibayaal dependability and waxaa sidoo kale loo yaqaan saaxiibayaal attention to details in aad barata oo ah sidee qof attention to details ah oo sidoo kale detailska attention siin kara amaba qof hayaacda aanan ahayn oo qof waxyaabaha xogaha lala wadaaga ama xogaha laga codsada si feejignaan sare ay ku dheehan tahay aad u noqon kartaa waxaa sidoo kale laga maarmaan ee saaxiibayaal oo kaalin sideed ku jira wax loo yaqaano empathy iyo sidoo kale active listening empathy waa naxariis inaad noqoto qof naxariis badan oo dadka si naxariis ay ku dheehan tahay ula hadla dadka si naxariis ay ku dheehan tahay ula shaqeeya dadka si naxariis ay ku dheehan tahay ugu jawaab wax la weydiiyo iyo sidoo kale wax loo yaqaano saaxiibayaal active listening oo ah in qof wax dhageysta marka wax loo sheegay wax dhageysta marka uu wax baranayo wax dhageysta marka la hadlayo aad noqoto marka waxa ay sidoo kale ka mid yihiin active listening-ka iyo sidoo kale empathy-ga xirfadaha ugu muhiimsan ee aad baran karta sanadahan aanu joogno amaba dunidan maanta aanu joogno waxaa sidoo kale ka mid ah leadership and social influence sidee ayaad u noqon kartaa qof hogaamiye ah amaba hogaamiye wanaagsan hogaamiye waa inaad noqotaa wax hogaamiye marka sidee ayaad hogaamiye wanaagsan ku noqon kartaa sidoo kale waa xirfad lagaaga baahan yahay oo ay tahay lagama maarmaan in aad barata sanadkan aynu joogna waxaa ka mid ah talent management waxaa sidoo kale ka mid ah service orientation and customer service waxaa ka mid ah resource management and operation waxaa ka mid ah AI and big data waa wax loo yaqaano teknolojiyada ayay la xiriiraan kuwaasi waxaa ka mid ah AI-ga barashadeeda iyo big data waa shaqooyinkiina way ku jiraan sidoo kalena core skills way ku jiraan loogu baahan yahay waxaa sidoo kale ka mid ah design and user experience ama waxa loo yaqaana design and user experience sida loo yaqaano teaching and mentoring ayaa ka mid ah sidee ayaad noqon kartaa qof dadka wax bara isla markaana qofka mentor garay ama tutor noqdo waxa sidoo kale ka mid ah saaxiibayaal xirfadaha ama teknolojiyada ay lagama maarmaan ka tahay in aad barata waxa loo yaqaana programming ayaa ka mid ah amaba in aad noqoto qof programmer ah haddii ay noqon lahayn mobile app developer ama web developer aad noqoto marka programmer inaad noqoto luqadaha kala duwan haddii ay noqon lahayd JavaScript haddii ay noqon lahayd Python haddii ay noqon lahayd C++ marka qof programmer ah inaad noqoto waxa ay ka mid yihiin xirfadaha laga maarmaanka ay la xiriiraan dhinaca teknolojiyada ee loo baahan yahay 5 sano ilaa iyo 6 sano ee soo aadan xirfadahan waxay isugu jiraan saaxiibayaal sida hore aan hore u sheegay qaar la xiriira working with others sida dad kale loola shaqeeyo qaar la xiriira teknolojiyada qaar la xiriira self efficiency qaar la xiriira physical ability qaar la xiriira engagement skills engagement skills waxa ka mid ah marketing and media sida media loo adeegsada loo isticmaalo ama social media loo adeegsado ama si loo sameeyo marketing digital marketing haddii ay noqon lahayd iyo noocyada kala duwan ee marketingka marka waa inaad tahay sidoo kale qof marketing and media si wanaagsan shaqooyinka la xiriira teknolojiyada ee laga maarmaanka ay tahay waxaa ka mid ah inkastoo aan xag dhinaca shaqooyinka soo sheegay sidoo kale waxa loo yaqaana saaxiibayaal oo network and cyber security inaad noqoto qof network engineering ah isla markaana cyber security-ga si weyn u bartay ama cyber security-ga ku takhasusay environment ayaa ka mid ah environmental I don't know what that is environmental stewardships ayaa ka mid I have no idea waxa laga wado waxa sidoo kale ka mid ah inaad noqoto waxyaabaha la xiriira ethics-ka wax loo yaqaan global citizenship waxa ka mid ah saaxiibayaal shaqooyinkaasi laga maarmaanka ah reading
writing and mathematics ayaa ka mid ah oo la xiriira congenitive skills amaba xirfadaha laga maarmaanka ah inaad noqoto qof wax qora kara wax aqrin kara isla markaana xisaabaadka ku wanaagsan intaasi saaxiibayaal dul mar ayaan ku sameeyay raali noqdo in badan oo kamid ah Soomaaliga kuma sheegi karno oo aad af Soomaaliga uguma wanaagsan laakiin I hope inaad fahmi kartaan inta ugu badan isla markaana dadka ugu badan hadda ay luqadda Ingiriiska wax ku qoraan ama wax ay ku akhriyaan halkan ayaan idinkaga muuqataa reportka waxa loo yaqaan core skillska ee laga maarmaanka u ah ee ay hay'adaha caalamka raadinayaan graafkan ayaana dhammaantood waxa uu soo koobaya sida ay u kala muhiimsan yihiin sida ay u kala horeeyaan sida ay u kala muhiimsan yihiin iyo sida ay isugu xigaan iyo sida laga maarmaanka u yihiin marka core skillska 2023ga ayaa sidoo kale uu figurkan 4.2 sharxaya waana aragtaan waxaan rajaynayaa saaxiibayaal in aad si wanaagsan u fahanteen graafkaasi waxa uu na tusinaya saaxiibayaal xirfadaha ugu muhiimsan in ka badan 10 xirfadood ayaan eegnay ee ay lagama maarmaan ka tahay in aad maanta barata amaba aad diiradda saarta haddii aadan haysan xirfadahaasina ay kugu adkaan doonto in suuqan aad wax ka goyso isla markaana aad suuqan saameyn ku yeelata shaqooyinka ayaanu soo aragnay xirfadaha ayaanu soo aragnay laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku daro saaxiibayaal teknolojiyada amaba technology literacy inuu yahay waxa ugu weyn ee tag awayga amaba waxa ugu weyn ee halkan aan ka qaadan karna boqolkiiba 90 inuu yahay marka haddii aad tahay qof dhalinyaro ah ee hadda jaamacadda ku jira haddii aad tahay qof dhalinyaro ah ee dibadda jooga haddii aad tahay qof dhalinyaro ah iyo qof kasta oo warbixintan daawanay in teknolojiyada ay lagama maarmaan tahay isla markaana aad hadda diiradda saarta shaqooyinka ugu badan waxay la xiriiraan AI cloud computing cyber security big data iyo sidoo kale waxa loo yaqaan cryptocurrency amaba blockchain developerada shaqooyinkaasi iyo programmerada iyo networka dhammaan shaqooyinkaasi teknolojiyada la xiriira markasta waxay noqonayaan kuwa mustaqbal fiican suuqa ka baxay shaqooyinka administrative-ka ah la xiriira managementiga la xiriira warehouse-ka la xiriira ganacsiga la xiriira darawalnimada la xiriira security-ga ee albaabada la istaagana waa shaqooyinka maalinta ka dambaysa suuqa kasii baxay isla markaana loo baahan yahay in aanan sugin ilaa iyo inta ay dusheena ku dhamaaneen amaba dusheena ay ku burburiyaan oo ay suuqa ka bixi doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa mawduucan si weyn u danaynaysay in ay wax badan ka ogaadaan luqadda Ingiriiska ay shaqooyinka ugu badan saaxiibayaal u baahan doonaan mawduucyada soo aadan iyo barnaamijyada soo aadan waxaan ka soo sameyn doonaa platformyada ay xirfadaha ka badan doonto luqadaha lagaaga baahan sida Ingiriiska iyo meelaha aad ka baran karta ee lagaaga baahan yahay online platformyada materialyada la haysta dhammaan arrimahaasi ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah haddii aad leedahay muuqaalo badan oo mawduucan teknolojiyada ayaan soo wadnaa laakiin waxa ay ku xiran tahay sida aad noogu dhiirigelisaan in muuqaalo badan aan soo sameyno waana in aad naga mid noqotaan Cabdijaliil Bro dhalinyarada ayuu kanaalkan iyo teknolojiyada ayuu gaar u noqon doonaa haddii uu Ibrahim ka noqdo waxa aan leeyahay janaal kale oo Cabdijaliil Bro waad wada taqaanaan kanaalkii kale Cabdijaliil Bro waxaan ku soo gudbiyaa siyaasadda iyo arrimaha bulshada laakiin kanaalkan waxa uu noqon doonaa kanaal gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo teknolojiyada haddii aad arrimahaas xiiseynayso kanaalkii kale waxa ku xiran 119 oo qof ayaa ku xiran waxaanu ku soconaa 120 oo qof marka waxaan rajaynayaa in kanaalkan dhalinyaradana aad gaarsiisaan kanaalka dadka waaweyn ee siyaasadda iyo arrimaha bulshada aan kusoo gudbina markasta oo aad nagu dhiirigelisaan inaan muuqaalo sameyno waa markasta oo aan si joogto ah barnaamijyada arrimaha la xiriira oo xog la xiriirta waxaan idin ballan qaadayaa in xog kasta oo aan halkan idinku soo gudbinayo ay noqoto wax fact based ah isla markaana data amaba xog aan ka soo xiganay hay'ado caalami ah iyo website waaweyn oo sidoo kale sumcadooda wanaagsan tahay inaan idin soo gudbin anigoona ka fogaan doona in wax kasta oo buunbuunin ah aan halkan idinku soo gudbiyo marka fadlan ka mid noqo kanaalka dadka ku xiran Cabdijaliil Show intaasi ayaan saaxiibayaal muuqaalkan ku soo afmeeraya aan kaga hadlaynay shaqooyinka fursadaha leh 5 sano ee soo aadan iyo xirfadaha laga maarmaanka ah ee ay raadinayaan hay'adaha caalamiga ah warbixintan waxaa daawacday World Economic Forum iyada oo PDF ahna haddii aad ku qorto World Economic Forum report 2023 waad arki doontaa qaybta description-ka ayaan idin soo dhigi doonaa waxaan ahay Cabdijaliil Cusmaan Cabdijaliil Bro ayaad nagala socotaan fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran Cabdijaliil Bro tani intaan barnaamij la mid ah ku kulmi doona waxaan idin leeyahay isma weyno